haddii ay jirto taariikh la iloobi karo, tani ma ahan taariikhdii la iloobayay. waa mid qof kastoo Soomaaliya qalbigiisa iyo maskaxdiisa ku weyn. waa taariikh ayadu isqortay qofkii ugu qiimaha badnaana uu qoray kuna qoray dadnimadiisa iyo dadaalkiisa. taariikhda aynu maanta ka hadli doonno waa taariikh nololeedkii Ilaahay ha u naxariistay General Cali Mataan Xaashi, aabihii duulista Soomaaliya, the father of Somali Air Force. General Cali Mataan Xaashi waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1927. waqtigaas Soomaaliya waxay ku jirtay gacanta Talyaaniga, waxaana jirtay xaalad gumeysi iyo kala qaybsanaan. Cali Mataan wuxuu ku soo barbaaray deegaan ay ka jireen dareen wadaniyadeed iyo rajo xornimo doon ah. wuxuu ahaa wiil firfircoon oo aqli badan oo aad u jecel waxbarashada iyo adeegga dalkiisa. tan iyo yaraantiisii wuxuu muujin jiray rabitaan uu ku doonayo inuu dalkiisa ka saaro gumeysiga, isla markaana uu wax kaga qabto horumarinta aqoonta iyo difaaca qarankiisa. sanadkii 1944 isaga oo 17 sano jir Cali Mataan wuxuu ku biiray ciidankii loo yaqaanay Signal Corps ee ciidanka Ingiriiska, kuwaas oo markaas gacanta ku hayay Soomaaliya waqooyiga iyo gobollo badan oo koonfurta ah. wuxuu halkaas ka bartay aqoonta isgaarsiinta iyo maamulka ciidanka. markii la kala diray ciidanka sanadkii 1947 Cali Mataan wuxuu u wareegay waaxda boostada iyo isgaarsiinta ee magaalada Muqdisho, halkaas oo shaqo cusub ka bilaabay isagoo weli aad u daayar. intii uu ku jiray shaqada rayidka ah, Cali Mataan wuxuu ku biiray dhalinyaradii wadaniyadda ahayd ee ka hor timid maamulka Talyaaniga. sanadkii 1948 wuxuu ka mid ahaa dadkii abaabulay mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo sidii sii joogitaanka Talyaaniga. waxaa xusid mudan in kacdoonkaasi uu sababay in boqolaal Soomaali ah la xirxiro, boqolaal kalena ay ku dhaawacmaan. sanadkii 1950 Cali Mataan waa la xiray kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay sawir muujinaya madax bannaani, taas oo gumeysigii uu u arkay calool adeeg wadaniya. muddo kadib waa la sii daayay, balse taasi kama aysan niyad jebin. waa halkii uu ka bilaabay qaybta labaad ee noloshiisa, duulista iyo difaaca cirka Soomaaliya. dabayaaqadii 1950 Cali Mataan wuxuu ku biiray waaxda duulista hawada ee Soomaaliya. wuxuu ahaa nin aad u hami badan, wuxuuna go'aansaday inuu noqdo duuliyihii Soomaaliyeed oo ugu horreeyay taariikhda. sidaas darteed sanadkii 1956 waxaa loo diray waddanka Talyaaniga si uu halkaas uga barto duulista diyaaradaha. muddo kooban kadib wuu ka qalin jabiyey. darajada wuxuu qaatay secondary, isagoo noqday duuliye iyo kontaroolada hawada Air Traffic Control ee ugu horreeyay Soomaaliya. markii uu dalka ku soo laabtay waxaa loo magacaabay agaasimaha garoomada diyaaradaha. sanadkii 1959 halkaas oo uu hogaaminayay qorshihii ugu horreeyay ee duulista Soomaaliya. markii Soomaaliya xornimada heshay sanadkii 1960 Cali Mataan wuxuu noqday maskaxdii ka dambeysay dhismaha ciidanka cirka Soomaaliya, Somali Air Force. isagu waa ninkii ugu horreeyay ee duuliye Soomaali ah noqda, kana shaqeeyay dhisidda nidaamka duulista, tababarka duuliyayaasha, iyo la xiriirka dalalka saaxiibka lala ahaa sida Midowga Soviet. sanadkii 1963 waxaa loo diray Soviet Union, halkaas oo uu ka bartay diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano MiG iyo tababarka duulista ciidan. markii uu ka soo laabtay wuxuu noqday taliyaha ciidanka cirka Soomaaliyeed. sanadkii 1965 wuxuu dhisay ciidan xooggan, nidaamsan iyo xarumo tababar duuliyayaal ah oo lagu xasuusan yahay ilaa maanta. Cali Mataan wuxuu noqday ninkii sare u qaaday magaca Soomaaliya ee hawada. doorkiisii siyaasadda iyo kacaankii 1969 markii afgembigii militariga dhacay 21 Oktoobar 1969 Cali Mataan wuxuu ka mid ahaa saraakiishii sare ee taageertay isbeddelkaasi, waxaana lagu daray golihii sare ee kacaanka ee loo yaqaanay SRC ee hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre. wuxuu door muhiim ah ka qaatay
qorista iyo habeynta xeerka cusub ee ciidanka, iyo sidoo kale siyaasadda duulista dalka. Cali Mataan wuxuu ahaa nin cadaalad jecel, dadkiisana jeclaa, wuxuuna caan ku ahaa daacadnimo iyo adeegid wadaniyadeed. muddooyinkii noloshiisa ugu dambaysay wuxuu soo qabtay xilal kala duwan oo aad muhiim u ah: taliyihii ciidanka cirka Soomaaliya, xubin ka mida golaha sare ee kacaanka, guddoomiyihii guddiga arrimaha sharciga, la taliye sare oo arrimaha difaaca iyo duulista ah. Generaal Cali Mataan Xaashi wuxuu geeriyooday sanadkii 1978 isagoo markaa jiray 51 sano jir ahaa. geeridiisu waxay ahayd mid shacabka Soomaaliyeed ka naxeen, maxaa yeelay wuxuu ahaa tiir muhiim u ahaa ciidanka cirka iyo magaca Soomaaliya ee caalamka. waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa aabbihii ciidanka cirka Soomaaliyeed, duuliyihii ugu horreeyay ee Soomaali ah, hogaamiye daacad ah oo aan hantida iyo xilka isku darsan, waddani u dhashay dalkiisa oo u geeriyooday isagoo difaacaya magaca Soomaaliya. Cali Mataan Xaashi wuxuu ka tegey taariikh dahabi ah. magaciisa waxaa lagu xasuustaa xarumo ciidan, garoomo duulimaad iyo buugaag taariikheed. dhallinyaradii uu tababaray waxay noqdeen duuliyaashii ugu sarreeyey ee Soomaaliya yeelato. qaar badan oo iyaga ka mid ahaa waxay ku dhinteen difaacii dalka 1977 ilaa 78 oo lagu qaaday Itoobiya. Ilaahay ha u naxariistee, Generaal Cali Mataan Xaashi wuxuu ahaa haliyey dhashay, tababaray, una shaqeeyey dalkiisa. wuxuu ahaa duuliye, hogaamiye, siyaasi iyo waddani isku dhafan. magaciisa weli wuxuu ku jiraa xasuusta dadka Soomaaliyeed, wuxuuna mudan yahay in lagu xuso maalin kasta oo lagu xasuusto geesiyaashii dhabta ahaa ee dhidibada u taagay qarankeenna. waa salaamantihiin.